waa gaalkacyo iyo furitaanka goob ganacsi oo la jaan qaadaysa dunida casriga ah nuuceeda oo kalena aanu horay ugu oolin gudaha magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug xarunta ganacsiga ee gaalkacyo Green Grocery waa goob u qaasay iibinta raashinka iyo qudaarta nuucyadeeda kala duwan waana hal-abuur cusub oo ay u riyaaqeen dhammaan ka qaybgalayaashii furitaanka xaruntan oo ku taala faras magaalaha gaalkacyo mas'uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka galmudug xubno ka tirsan maamulka degmada gaalkacyo oo isugu jira xildhibaano iyo agaasimayaal dhaqaatiir maamulka iyo milkiilayaasha xaruntan cusub iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka qayb galay munaasabada xarig jarka gaalkacyo Green Grocery xildhibaan Bashiir Sheekh Axmed Cawaale oo ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug ayaa si rasmi ah xariga uga jaray xarunta ganacsiga ee gaalkacyo Green Grocery macallin Cabdiraxmaan Salaad Maxamuud oo ku magac dheer Jaafar oo ah aasaasaha iyo milkiilaha gaalkacyo Green Grocery ayaa ka hadlay sida uu ku yimid hal-abuurka lagu furay xaruntan iyo adeegyada kala duwan ee ay u hayaan bulshada reer gaalkacyo bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum dhammaan bulshada ka soo qayb gashay oo ku jiro madaxda kala duwan ee ka socda dawladda hoose sidoo kale xildhibaanka marti sharaf kale oo qiimaha badan oo ka soo qayb gashay ku soo dhawaada xaruntan waa xarunta ganacsiga ee gaalkacyo Green Grocery waana xarun aan ugu tala galnay aan isdhigi karno runtii baahiyada deegaanka ka maqnaa ay ka mid tahay xaruntan waxyaabaha lagu iibiyo waxa ka mid ah fruitska noocyadooda kala duwan ha ahaado fruitska caadiga ah ee la cuno iyo vegetable-ka ah xagga qudaarta marka labada noocba waa ka heli kartaan sidoo kale adeega caadiga ee guriga nooc walba waa laga heli karaa waa xarun aan isdhahnay waxa baahida bulshada dabooli kartaa sidoo kale waxaan sameynaa cabitaanadka fruitka ah ee ayagoo jarjaran oo gasacaysan oo habaysan lagu geynayo xaafadaada soo dalbanaysa lagu geynayaa sidoo kale ayagoo diyaarsan hada u imaata xarunta waa ka helaysaa waxa kale oo ka helaysaa cabitaanada seekada ah ee laga sameeyo fruitka marka soo dhawaada madaxda iyo dhammaan bulshada waxaan dhihi lahaa fursadan waa fursad qaali ah aan isdhahna baahiyo deegaanka waay sidoo kale waxaa jirto qaybta adeega aan iloobay oo ah in aan ku soo kordhinay adeega hilibka noocyadiisa kala duwan sida hilibka geela lo'da sidoo kale kalluunka digaaga noocyada kala duwan oo hilibka nus kiilo ayadoo diyaarsan ayaa ka heli kartaa hatta waa soo dalbanaysaa meel alla meesha joogto gaalkacyo kamid lagu keenaya oo qaybtood away ay leedahay marka soo dhawaada insha Allah waxaan jeclahay insha Allah waxaan isleeyahay fursadan waa fursad magaalada ka maqneed aan isdhahnay marka waan ku soo kordhinay waan mahadsantihiin agaasimaha ganacsiga iyo dhiirigelinta maalgashiga maamulka degmada gaalkacyo Bashiir Ciise Geedde ayaa dhinaciisa ka hadlay furitaanka xarunta ganacsiga ee gaalkacyo Green Grocery wuxuuna dhiirigeliyay hal-abuurka lagu furay meeshan isagoo sheegay in ay ka maamul ahaan garab taagan yihiin ganacsatada reer gaalkacyo si loo helo kobac ganacsi oo qayb ka qaata sare u kaca dhaqaalaha iyo nolosha dadweynaha galabta sharaf weyn bay noo tahay inaan halkaan ku daahfurno ama ku xarig jarno hadda ka hor maharad aan hore loogu arag degmada gaalkacyo iyo dhammaan inta aan ka ognahay galmudug oo noocaan oo kaleeta ah oo loogu talagalay qudaarta noocyadeeda kala duwan iyo agabka la dhihi karo waa daily life la dhihi karo lagu soo diyaariyay oo diyaarsan oo hal meel laga wada heli karo khiyaarta aad baan ugu mahad celinaynaa meesha nooga furta dhalinyarada uu hogaaminayo ustaad Cabdiraxmaan Salaad waxaan leenahay Allah barakeeyo aad bay waxay u tahay in dhalinyarada noocaan oo kaleeta ah inay deegaankooda waxay ay tusinaysaa in laga heli karo macnaha meel kale oo maaragtay maanta la dhihi karo Soomaaliya wax kasta in laga heli karo tusinaysaa waxay u baahan tahay kaliya u fakirid iyo qofku inuu asagu maskaxdiisa aqoontiisa inta maala asagu naftiisa oo wixii oo maaragtay markaas isleeyahay deegaanka waa ka maqan inuu ku soo kordhiyo qaar kamid ah dhaqaatiirta gaalkacyo oo goobjoog u ahaa furitaanka xarunta ganacsiga ee gaalkacyo Green Grocery ayaa dhankooda ka hadlay faa'iidada goobtan ay u leedahay bulshada reer gaalkacyo iyo doorka ay cunista qudaarta iyo cuntada diir kale ka geysan karaan caafimaadka dadweynaha xarun aan ugu imaanayno qudaarta noocyada kala duwan oo loo bixiyay gaalkacyo Green Grocery markii aan dhaqaatiir ahaan u hadalnana waxa waaye adeeg dadka wax weyn ka anfacayo waaye waxaa jiro dad badan oo xanuuno gooni la nool oo aan loo ogoleen inay isticmaalaan macnaha waxyaabaha kale ay ku jiraan sokorta ay ku badan yihiin saadeed marka qudaartu waxay ka anfacaysaa inay waxyaabo badan oo anfaca inay ka helaan
ay ugu horeyso kale hadda tufaaxa kale ugu horeeyo kale oo wax badan caafimaad ka taro waxa la yiraahdaa qofkii maxay ahayto hal tufaaxa maalin walba isticmaala subax walba wuxuu ka fogaadaa baa la yiraahdaa dhakhtarka marka waxyaabo badanna waan ku aragnay oo meesha yaala oo aan deegaanka hore lagu arki jirin oo ay ka mid yihiin cambihi canaaska uu ka mid yahay iyo sidoo kale afakaadhada marka iyaguna intaasna waxay caafimaad u leeyihiin jirka ay si gooniya ay caafimaad ugu leeyihiin ugu dambeyn xildhibaan Bashiir Sheekh Axmed Cawaale oo ka hadlay furitaanka xarunta ganacsiga ee Gaalkacyo Green Grocery ayaa waxa uu dhiirigeliyay dhalinyarada hirgelisay xaruntan ganacsi isagoo oo ugu baaqay dhalinyarada kale in ay ku daydaan dhalinyarada daafuray xarunta ganacsiga ee Gaalkacyo Green Grocery oo ay la yimaadaan shaqo abuur iyo fikrado cusub bedelkii ay iyagu shaqo raadin lahaayeen galabtii waxaan joognaa meherad cusub ee la furayo ama suuq cusub oo la furayo oo Gaalkacyo Green Grocery la yiraahdo oo hal abuur ay la yimaadeen dhalinyarada reer Gaalkacyood ah oo hoggaan u yahay ustaad Cabdiraxmaan aad iyo aad baan u mahadcelinayaa marka hore waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dhalinyarada la timid hal abuurkan ee ku soo biirisay meeshan anigu waxaan joogaa meeliya Galmudug dhalinyaradu inta badan waxay yimaadaan wasaaradaha iyo meelaha ay shaqooyinka ka raadinayaan sidoo kale hay'adaha ay tagaan iyo shaqo goobaya oo raba inay qof u shaqeeyaan laakiin dhalinyaradan waxa uu mahadcelinayaa in ayagu shaqo abuureen shaqo abuur la yimaadeen oo ayaga iyo asxaab kale ay ka faa'iideysan doonaan suuqa kan galabtay halkan laga furayo insha Allah taala laga xarig jaray aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa dhalinyarada sidaalkeeda ugu mahadcelinayaa waxaan kaloo u mahadcelinayaa ka soo qaybgalayaasha dhammaan golaha deegaanka iyo maamulka degmada iyo khiyaarta kalaba ee ka soo qayb galaan meeshan inay dhiirigeliyaan oo maaragtay hal abuurka ay la yimaadeen lagu dhiirigeliyo lagu garab istaagana aad baan ugu mahadcelinayaa aad iyo aad baan u mahadsantihiin hore u wada waa sidaan loola sii dhawaado haddii dhowr qof ama dhowr dhalinyaro ay isku leexato oo ay hal abuur la timaado Gaalkacyo dhan shaqo la'aanta waa ka baxayaan dhalinyaradu waxayna helayaan shaqo